حاجة يضاي الركولة سجي حقل مرويو حالة دابري مين مجا عصمري يوم قالنا بردادي ميرادي ما انتي عيل كما وحلي فيدا وستدي الربع الله waxaanu joognaa duleedka magaalada Ceerigaabo intan dambe abaaraha waxa magaalada la iiga sheegay in lagu reeyay geel halkan uu ku hayo Ali Baashi Maxamuud oo ninka yaag taagan geelana caanihiisa ay magaaladu manaafacadsanaysay bariyahan dambena waxa soo badanaya magaalooyin fara badan oo kuwa Soomaalida in sidan oo kale geela loo dhaqo oo beera lagu hayo oo geelii la foofin jiray la iska daayo goordhowba la maalaya geela Ali Baashi baa laakiin iiga waramaya bal hadda geelin xaaladiisa geelani hadda wuxuu xiray aad iyo aad baad u mahadsantihiin horta inaad soo siyaarateen geelani wuxuu xiraysan yahay hadda muddo 2 sanadood iyo badh lama dareeriyo naqaba iyo cawska iyo caleentaba iyo wax kale oo aanu siino aan halka uga beeray beerta dhexdeedaba yaanu u goynaa meel daraho halkan oo hadda ida arki doontaan darkaas lagu siiyaa si kala qaybsan baa loo siiyaa nirgaha yarana si baa loo siiyaa geelo waaweyna si geelo waaweyn waa qaar riman iyo qaar irmaan imsa halaad baa markaa halka jooga calo shalay baanu diray geeli badnaa ee gaanaha dhowr iyo 30 baa hadda halka jooga laakiin geeli badnaa ee gaanaha ahaa aan hadda rimayay shalay baanu diray soolasha ay ka diin roobabku halkaas ku soo rimaya mar dhow nirgaha lagu sii deynaya sidii sheegtay halaha laakiin calow haddii su'aal kale ku weydiiyo marka geela sidan oo kale loo dhaqo oo Soomaalida imka arrin ku soo badanaysa maxay kaga duwantay sidii hore geela la foofin jiray waxa weeye geela iyo dadkuba way dhibaataysnaayeen dhaqankii hore ee Soomaalida sidii u daba socon jireen anigeygani bari baan raacayo 26 maalmood baan biyo arag oo hawd intaan aanu ka soo waraabinay 26 maalmood baan biyo arag laakiin geelani waxa weeye geel fadhiya hawl ma laha isaga daryeelkiisa ku fiican tahay hal walba kuruska baxaya caanaha badanaya iyo manaafacaadkiisa 3 goor baanu maalintii lisnaa habeenkii subaxii baa la lisaa harkii baa la lisaa habeenkii baa la lisaa markuu iska ayda ku jiray lama awoodi karin daryeelkiisuna waxa weeye caafimaadkiisa taxanuusanaysa wax ku soo kordhan wad ogaanaysa inkastoo cudurka geela Soomaaliya ku dhacaa buu iska yaryahay cudur yar uu yahay marka waxaan kula talin lahaa dadka in badanna waan ka sheegay mass media waxaan kula talin lahaa xoolaha in la fariisiyo oo socodkan dheer iyo abaartan marba jibinaysa ee haddana hadhowto la leeyahay waan cayroobi in shan tira lahaa ama 200 halaad lahaa ya cayroobiya marka waynu dib u bilaabaa abaartii markaa dhacday welina diifteedii ay taagan tahay wax saameynaya inaba kugu yeelatay haba ka yaabin niriginaga dhiman waa ka balgeelba in yar kamarada ku qabto kuruska soo baxay markuu gelgelimeysto inuu ka kici waayaan ka baqnaa baruur darti waa ka halka fadhiya saasoo eg baruur buu isjibiyay marka maba ogaba ya waxa yar oo cunayaana geelu iska waaweyn yahay cir ma leh nirgu markay sidoo kale dhawaaqan oo kale sameynayaan waxa la yiraahdo way dunuunacayaan oo waxay u dunuunacayaan in la liso geeli xilligii bay taagan tahay ay caanaha cabbi jireen way taasayna hadaba ku dhaqaaqaynaa waa hagaag hawshaas imika la gudagelaya geeliba nirgaha lagu sii deynayaa oo wala soo godlayaa haddii bariyaha daawada aanad arag geel la soo godlayo iyadoo waliba fiidkii waa halka caliye iyadoo maanta iyo shalayba magaalada uu roob helay oo jawi aad iyo aad u wanaagsan uu magaalada ka jiro Ceerigaabo ayaa geelina imika loo soo lisaya geeli baynu bilaabanaa in la liso geelu magaciyuu leeyahay nirgaha hal walba hooyadood baa loogu yeedhayaa waxaan u malaynayaa inay ku bilaabi doonaan dhamays oo ku sidkan miisaan iyo hasha la yiraahdo gobaad saddexdaas way isku sidkan yihiin sidigtu waxa weeye nirigta ka dhaxaysa saddexdoodaba marka waa sidig marka hal waliba magac bay leedahay
magacaasa loogu yeedhaya marka loogu yeedho waa fadhiyaan waa arki doontana way ka casaan waxaa la isugu sidkay marka calow waxaa la isugu sidkay nirgihii baa ka dhintay nirgi yaryar cudur daacuunkii aanu dadkoo kale u ekaa oo 3 maalmood keliya nirgu noolaanayaan yaa nagaga dhacay markiiba dawaanu helnay hargeysaanu ka helnay kiniin baanu ku guray 3 kiniin maalmaha dambana jabjab baa la siinayaa uu istaagaya daacuunka war wanaagsan weeye soo godo dhamays soo daa dhamays inta uu soo godlay Cabdiqaadir imisa nin baa Geela hayo ka shaqeeyay calow waxaa ka shaqeeya 2 nin labana beertay ka shaqeeyaan 4 nin baa shaqaale ka meesha halkan ceel baa ku yaal shaqo abuurkii magaaladana waxaa ka daran shaahad magaalada ka cabaysaan jiilaalkii abaaruhu dhaceen ee aan caanaha la haynin geeleegun baa lagu cadaysanay odayaasha liitay xoogaa waa yeelkiina geelun bay ka cabiyeen caanaha marka wax badan bay soo daayeen tan waa tan wayna xarbi حربي سودا حربي waxa loogu bixiyayna waa sheeko dheer hasha lafteeda dhowr goor la isku qabsaday sumado badan bay leedahay marka xarbi baa loo bixiyay Aliyo dadka marka sidii dhaqanka Soomaalidu geela meelo magaalooyinka ka fog ku haysto oo deedna laga yaabo saad sheegayso in abaartu qaar kalayso oo dhibaatooyin kale ay ka hor yimaadaan waxaad kula talinaysaa inay kulligood magaalooyinka dushooda soo degaan waxaan kula talinayaa Soomaaliya guud ahaan gaar ahaan Somaliland waxaa la keenaa caano booro badan oo kala nooc oo waxay ka yimaadeen aan la garanayn inagoo xoolaha ku caanbaxnay oo geela Afrika ugu badan inagoo aan leenahay ama adduunkaba in la tartamayno inaynu caano booro keenna maaha saa darteed anigu waxaan kula talin lahaa dadka geela hayntiisu lacag badan ma cuno waa ciryari yahay waxa laga yaabaa maalintii inuu 4 kiilo cuno 4 kiilo ama cawsa ama caleena ama calaf kale oo la siiya ama galeey 4 kiilo kama badsanaysaa biyahana waa la siinaya biyuhu badsada marka waxaan kula talinayaa inay geela dhaqaan si caanaha wayna marka helaan Soomaha suuq geyntiina ma waxaad kula talinaysaa inay miigana la soo faarqiyo magaalooyinka miigana waa eeg miigana qaar baa joogaya geela caanaha lahayn wuxuu joogayaa miiga geela caanaha lahayn magaalooyinka la keenaya marka in geeli la dhaqo xoolihii la dhaqo imika caanahaygani waxba kama aha hadda waa wax yar marka loo eego baahida magaalada Ceerigaabo waa tan la soo godlay hashii ugu horeysay dhinacan hadda kamarada ku soo yar qabo حربي baa la yiraahdaa sumadaha ay leedahay Soomaarti taa waxaa la yiraahdaa far qoorta iyo barkimo far weeye taas alif qoorta barkimaduna wataa jeeniga kaga taa sumadaas waxay ka timid ood weyni for your information armu geelayga yahay markii daraawiishta aanu jabnay dadkii tagay ee ku badbaaday xagga yaa sumadaa noo keenay niman badhul baanta la yiraahdaa dhigtaan u maleynaya oo reer ood weynaa oday ducaalo cun loo oran jiray oo reeraha iyaga yaa noo keenay sumadaas aynu ku dhiganana sidii baan ugu dhiganaa waa geela marka waa la garanayaa qolada iska leh marka sumadiisa la waa la garanayaa waa taarikadii hasha marka nin walba waa garanayaa sumadaas hashan xarbi la yiraahdo dhowr qolaa iska daba macaashto marka sida arkaysan nirigta loo yeero hasha loo yeedhaya marka hore soo baxaysa waa ka casa hashuna waa ka casa sudununa ayaan marka wata way ursanaysaa marka hore weynaa ursataa taasina waa maandeeq waa hasheenii maandeeq magacaas waa magacaana maandeeq bal bahasha quruxdeed lama heli karo haday dhalasaa quruxda marka maandeeq wax loogu bixiyaa waa quruxda hashu magaca waa la baxdaa waxa lagu oranayaa hashaas magaceed weli markay curatay la baxaysaa magaca oo la ogaanaya marka Soomaalida dhaqankeedu wuxuu ahaa inay ilaaliyaan geela inay xoolaha ilaaliyaan bariya dhexdaas laga tagay anigu waa ku soo noqday waxaan ahaa markan meeshan asaasay sanaa geelu kuma badna waaniga kuu sheegay dhaxan baa jirta uu dhaxamooda waaniga waxaan u dhisay haddana daarba baan ka dhigayaa derbi baan u xidhayaa marka
waa wax la dhaqan karee intii laysu tago caanihiisa waxaan u malaynayaa in dad fara badan ay kaaga dayan doonaan ama ay wax ka baran doonaan aad baan ugu farxi lahaa weliba waxbaan bari lahaa waayo wuxuu cuno cudurka ku dhaca wuxuu diido wixii oo dhan waa ku takhasusnay hadda annagoo la kaashanayna dhakhaatiirta xanaanada xoolaha ee wasaaradda xanaanada xoolaha ee Somaliland oo runtii aad noo taakulayso waxna tarta ama talaha noqoto ama tusaalaha noqoto ya hashuni gudlanta waxa lagu yaqaanaa way saaloonaysaa intaan caanaha laga lisin marka taasay ku tusinaysaa ya naaskii xanuunaya aad hawga lisin naas baa yara xanuunayo eeg xasan uu ku siidkan yahay isaguna calo haddaan su-aal kale ku weydiiyo beri dhexda ahayd australian tegey nin australiana oo caddaanoo sidanoo kale geel meel ugu dhaqay ayaan beertiisa tagoon barnaamij ka sameeyey waxyaabahay samaynayeen ee soomaalideennu aynaan samaynin waxaa ka mida in biyo diiran marka hore candhada lagu maydho hor intaan la maalin taasna soomaalideennu ma samayno waxtar ma leedahay bay kula tahay waxtar badan bay leedahay uskagii hashoo ay fadhiisatay xerada ayaa laga maydhaa maracad baa laga mariyaa xitaa hadhuubkan la culaye hadhuubgaalka inaga dhaqankeenna laguma lisee waxaa lagu lisaa baaldi macdan ah ya oo aan mirir lahayn caanaha dhadhankooda culayga ma anagu ma samayno dee inaga dhaqankeenu culaygii bay dadku doonayaan culayga ma sheegayo laakiin tamaydhidoo kale maydhida ma samayno laakiin inaanu samayno aad baad ugu maadsantahay inaad noo sheegtay inaanu samaynana waa tahay meelo badan oo lagu sameeyana anigu waan soo arkay oo waan arkay gaar ahaan xagga Kenya niman Ingiriis oo geel badan dhaqay marka waa wax wacan laakiin anagu ma samayno hadda nasiib daro adaan ugu kordhiyo waa faa'iido weyn oo qaadanayna xaga iyo day xirnu kula tagay xag la maro iyo xaalada baray iminka laga bilaabo cali oo kamarada duubayaan ku wareejinaya mikrofoonka deedna anuu hawshii kale aan noo qabanaya idinna waa idiin soo niyeynaya hadhowkii iyo caanihii xoorinaya waa caano la yaab le wey magaalka caw marka caanaha sidoo kale loo dhamayo waxay dhawaan cabayaa cabid maaha waa dhamid soo waa dhamaya aniga ma igu soo wartay raxmi muddo dhowr biloodun bay imika halkan ka shaqaynaysay Somaliland waddanka Britain bay ku kortay wax ku baratay ilaa yaraanteedii ay joogtay raxmay sano kale caano inta loo soo maalay deedna hortaada lagu maalay sano kale ma u cabtay weliga ma cabin هاي xasuusta laakiin waa organic هاي حسن وحي ورديسا متقان حسن هذا وحي كورديسا المهدي يا المهدي بيرادينسا المهدي بيرادينسا وسو داين نريتين way cabdiraxmaan oo isaguna nala socda oo nin reer magaalo ah oo hay'adaha la shaqeeya ayaa isagana kalkiisii ay timid oo hada cabdiraxmaan oo goorma kuugu dambeysay adigana sanoo kale wallaahi anigu caanaha weliba geela sanoo kale loo soo dhisay mar iyo laba waan soo cabay marka magaalada Hargeysa oo deganahay duleedkeeda imika magaalada Ceerigaabo joognaa laakiin magaalada Hargeysa oo deganahay duleedkeeda ayaanu dhowr jeer u baxnay anagoo asxaab iyo koox wada socona marka way jiraan laakiin ma badnayn ilaa 2-3 jeer ayaanu soo tijaabin oo maad geel jiray weliga ma geel jirin way horta isku daydeed hadhow caanaha ka hadli doontaa
markuu saasoo kale u cabayo ee dhowr goor uu qurquriyo magaabin baa la yidhaa soo ma waa magaabinaya wuu magaabinaya caanaha mar waa la dhamaa oo waa la qurquriyaa marna waa la magaabiyaa markaa hadda wuxuu ku jiraa qurquradii buu ku jiraa magaabintuna markaad intii afka laga buuxsado la liqo yaa qofkaa loo dhiiba markaasuu isna afka ka buuxsanaya waan xusuusinaya inaysa soo dhaafay waan ku arkay cabdisalaanow waxaan xasuustaa markaad caanaha cabayso caanaha geela waxaad xasuusanaysaa yacni qiimaha caanaha geelu ay ku leeyihiin soomaalida agtooda marka waxaan xasuustay markaan nimka caanahan cabayay nin gabayaayo oo ka gabiye caanaha soomaalida ama geela soomaalida guud ahaan isagoo ammaanaya gaarna uga sii hadlay caanahooda wuxuu yidhi qodxihii dhallaannimo kugu muday ayaa kaaga soo dhaca yacni halkay gaadhayaan dhul ay qaboojaane qodxihii dhallaannimo kugu muday ayaa kaaga soo dhaca marka waa caano ama waxa weeyaan cunto gaadhaysa jidhkaaga oo dhan caafimaad ahaan iyo nafaqa ahaanna runtii aad ku anfacaysa marka iminka dadka raaca geela oo kale tusaale ahaan geeljirahoo kale caanahan u bay cabbaan wax cunto ah oy cunaan ma jiraan marka micnehedu waxa weeyaan cuntana way kuu noqon karaan cabitaanna way kuu noqon karaan dhinac kasta way kuu buuxin karaan xusuusi cabdiraxmaan uu ka hadlayo warbixino laga qoray caanaha geela ayaa waxaa lagu sheegay in maadaama inta badan geelu uu ku nooliyay dhul saxara ah in ilaahay uu ugu talagalay nirigta yari inay ku badbaado caanahaasoo keliya deedna 10 laab baa ku jira baa la yidhaha vitaminska ku jira caanaha kale marka taas adduunyada imika way isla og tahay inkastoo dee bahalihii la yara kharibay markii calow farmasiyada inta la dhigay la yidhi waxaa loo isticmaalayaa alaab caafimaad wax badan baa laga sheegaa laakiin dhakhaatiirtu aad iyo aad waxay u sheegeen inay gaar ahaan caanaha geelu u wacan yihiin dumarku markay umulaan iyo intay uurka leeyihiin way ku taliyeen dhakhaatiirtu dumarka waxayna ku sheegeen qofka dhalan doona ee gabadhaasi ay dhali doontaa waa ka lafa adkaanaya waana ka caafimaad badnaanaya caanaha caliyow aan kaa dhex gala adooga raalliya waddanka holland baa isna waxaa ku taalla beer sanoo kale ah iminka ka hor maraan barnaamij ka sameeyey waxyaabaha la yaab kale dee innagu farsamadii casriga ahayd weli maynu gaadhin waxaa ka mid ahayd in caanihii geela laga dhigay kaneen oo deedna meesha lagu iibinayo markaad sii baxayso ayaad jebadda ku sii ridanaysaa dabadeedna waxay taasi meesha ka saaraysaa roob baa daayoo waddadii baa xidhantay iyo gaarigii baa dhiiqa galay iyo ma garanaysaa geelii baa guran iyo waxaasi ma jiraan jeebadaada adoo ku sitaad koobiyaa ku darsanaysaa galaas caana geela ninka tuuray marka taasi talo goormayna soo gaadhaysaa waxaan isleeyahay generationada hadda bilaabay geela inay dhaqaan oo fadhiisiyaan carruurtooda iminka mid yaroo aan dhalay fikrado badan buu aaminsan yahay saakuu weydiinayo lahaa hashaydii beryahan maarag waana 5 jir war hashaydii beryahan maarag meeday markaasaan aabba hasha waa rimi weydo waa la iibshi markaasuu maxaa la iigu sheegi waayey wuu ilaalsanay waa nin geela wax ku leh mid aan jecelahay halkaa fadhida hadda ayuu anigu tanaan qaadanaya haddii taydii la iibshi waxyaabaha kale laga sameeyeen Australia iyo Hollandba ku arkay creamka ka mid ah ice cream cheese bay ka sameeyaan iyo Holland waxaan ku arkay calawan kugu daray weligii ismaan lahayn waad arki doontaa caanihii geelo roodhi laga sameeyey oo roodhidan sliceska la yidhaah isdul saaran oo caanihii geela dee taasna waad sii qaadanaysaa kariinkaagana waad qaadanaysaa waxaanu doonaynaa inaan ka baranno inaanu ka baranaanu doonaynaa laakiin weli qolyo ayaga fadhiisiye geelu waa yarnahay waxaanu doonaynaa inaan bahalkii hala fadhiisiyo bahalkii qoriga lala daba socday ayada daaqayay wiilka la socday isaguba ay halaagmeen halaga daayay oo hala fadhiisiyo calo aad iyo aad baad u mahadsan tahay oo dee caani baa lee hor hayaa keena kuu qabtee mikrofoonka yara qaba barnaamijka inta kale adaa inoo wadaya haye haddana Hereri baa caanihii qurqurinaya waxaanu aad ugu faraxsannahay imaatinka ay noo yimaadeen caawa wallaahi wakaa sii daayey wakaa waxalugu waxay sharaf leeyihiin markay calowsanoo kale hadhuub ku jiraan hortaada lagu maalay hadhuubkuna culan yahay urtaa ma jeclaa dadka ajnabigii ee caanaha qaata
كورة سعد waxaan u malaynayaa inay tahay markii ugu horeysay la kulmo xarun noocan oo kala aan waliba noqotona markii ugu horeysay malaha caana geelan cababa inta aan xasuustaa ma garanaysaa waxa ka maqnaa kulli ha caanu san moodey ma hay mika way ka fiican yihiin san moodey ha oo markii ugu horeysay cabbo ma sha Allah sharaf baan noo tahay anaga way isku ka tiirinaysaa way jeceshahay inay dadka ku dhawaato waxba ku yeeli mayso wata way istiraahaysaa taabashada istiraah bay u qaadanaysaa xoodasha la yiraahdaa hawshaas way xoodanaysaa baa la yiraahdaa geel ma wada xootay qaar baa xoogaa buubaha laho fiiga iyadoo se waa adag baa la yiraahdaa adag baa magaceeda leeyahay hal adag ugu bixisay maadaama ay adkaysanka soo kuruskeeda ma aragtay jilaal kasta oo dhaco si kasta u gaajooto kuruskeedu waa taagan yahay waa geel ka adkaysan bada geela kale وانا هل عانا بدن هذا قاربان هلا اوغلين ميا انسان ها قارن تامن كريم بجرو عرريه تي هدان سو دافنay oo kale intooda badan ma xootaan laakiin tan waa saaxiibaday Soomaaliyeed say qoorta xitaa dhulka dhiga sadeena dhulka dhig Soomaaliyeed Soomaaliyeed waa xoodanaysaa way dhiga nugu shay markaa way xoodanaysaa way kalgacal badan tahay dadka kalgacal u haysaa laga yaabaa dad fara badan inay isweydiinayaan iyadoo abaaro laga soo baxay halka roobka wanaagsan uu ka daayo ee dhirta quruxda badan ay ku taalo kulaylkii waa malaan naga batay oo qudhayada u baahnay roobkan inaan soo dhigno horta waxaanu joognaa buurta magaca weyn leh ee caanka ee Daalo meesha laaga la yiraahdo dadku daawasho tago waanu gaari weynay waayo roob xoog la daaya arkay dhulkaas qabsaday ma sha Allah mar haddaad timaado magaalada Ceerigaabo munaad kastoo aad leedahay waa inaanad dhaafin mana dhaafi kartidba sideedaba buurta Daalo deedna Daalaanu joognaa waxaan rajaynayaa roobkii ay soo yara karay waxoogaa yare in markaanu sii gudubno ee roobkuna goordhow inaga qaado aynu halkaa dalxiiska ka sii wadan doonno waa inoo qaybta dambe waxyaaba abwaanada Soomaalida ee dareenka ku dhaliyo waxa kamid ah iyadoo joogu siday oo roobkii markaa qaaday ay qorraxdiina noo soo baxday ya salaam markaas midabkii dhirtuna sida uu akhtar ama cagaar uu sii noqday ilaahay yaa ku durdurkiina waa karagtayada maraya oo deedna shaqada biyo ay sameynayaan ayaad iyadana aad ugu raaxaysanaysaa buurta daaladii kollayba sida cid kastoo kaloo timaaragtay maaha meel laga xiisa gooyo waa waxay suugaanta Soomaalida hadday gabayeen noqoto iyo hadday hees noqoto ay ugu jirto iyadoo maanta roobka inta la guudaayo ayaa haddana dadkii soo dalxiiska tagay ay buurta lagu soo gaareen oo waxaan jeclaa iyadoo maanta daruurtu ay sidaa tahay oo cirku sidaa isu haysto in hadda aan idin tuso meesha laag sida maanta kale ay u qurux badan tahay waayo daruurtii buurta dul saaran tahay buurtana way ka hooseysaa buurtana way ka sarreysaa waati aan idinku ballan qaaday in marka roobku qaado aanu halka laaga la yiraahdo ee ugu muuqaalka wanaagsan la buurta aynu tagi doono nasiib xumo way suurta gali weyday maanta roobkiina wali waa daayaa sida arkaysaan dhoobo fara badan baa jirta marka sidii barnaamijkii hore carraweyn ayaan si arma mar labaad dhiiqadan gashaan marka xaggii magaalada iskaga noqonaynaa waa inoo hadhow
Buurta